kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhallaanka oo ka daawataan marka soo booqataan channeladaanu ku leenahay YouTube iyo Facebook ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadan toddobaadkan idinku hayana waxay ku saabsan tahay caruurey saddexdii saaxiib waa saddex bakayle iyo dacwadii dilaaga ahayd aanse ku bilaabo waxa la yiri beri hore waxa jiray saddex bakaylo oo saaxiib ahaa waxay ahaayeen saaxiibo naf iyo nolol qaybsiya inta badan wixii noloshooda saameeyo oo dhan ayay heshiis ku ahaayeen maalin maalmaha ka mid ah ayay aadeen duurka si ay u soo qaraabtaan balse muddo markay socdeen ayay waxay ku soo bixeen kaarooto weyn oo duurka dhexdeeda taala mid ka mid ah ayaa yidhi daawo kaarootadan kii kale ayaa yidhi ambawaan arkayay halka midkii saddexaadna yidhi aniga ayuubu ahaa kan ugu hor arkay kadibna way ku murmeen mid ayaa yidhi aniga ayaa iskale kan kalena waxau yidhi sidaad u lahaan kartaa aniguba adiga hortaa ayaan arkayay muddo ayay ku murmayeen balse markii dambe saaxiibo naf iyo maalba qaybsila ayay ahaayeen iyo waxay ku heshiiyeen inay si cadaalada u qaybsadaan inta aysan middaas samaynna waxay go'aan ku gaadheen inay marka hore tartan dhanka orodka u galaan waxay yidhaahdeen waxaan tegaynaa halka ugu dambaysa kayntan iyo aydan kadibna waanu soo ordaynaa midkeenna ugu soo dheereeya uguna soo horumara ayaa qaybinaya kana tala bixinaya sidaynu qaybsanayno kaarootahan sidaas ayaynu ku heshiiyeen intii ay tashanayeen waxaa taladooda maqlaysay oo gadaal kala socotay dacawo gaajaysan oo dilaa waxay tidhi maanta baahi daran iyo gaajo ayay haysaa balse waa fursaddii aan ku baahi bixi lahaa 2 amba 3daba waan cunayaa waxa weeye waa inaan helaa fursad aan ku dilo muddo ayay u fikirtay waxayna maqlaysay dhammaan wixii ay ku tashadeen iyaduna maskaxdeeda ayay isticmaashay dariiqii iyo jidkay ku ordayeen ayay ka qoday hog dheer kadibna dusha ayay caleen kaga daday oo ka qarisay waxay tidhi waa in 2 ama 3dooduba ay halkan ku dhacaan waana dabinkii ugu khatarsanayaan ku dili lahaa saddexda saaxiib waxay bilaabeen tartanka iyo orodka marba midkood ayaa horeeya kadibna kan kale ayaa soo gaadha xawaare isku mid ah iyo meel siman ayay dhammaantood ordayaan midkoodna midda kale kama horeeyo arrintanna dacawo ayay farax gelisay oo waxay tidhi dhammaantood meel ayay wada ordayaan wayna ku wada dhacayaan daabinka aad ayay sheedda uga eegaysay iyadoo ku faraxsan kana warwarsan wixii dhici doonaa balse si la yaab leh ayay saddexdii bakayle u guud mareen dabinkii ay dhigtay midkoodna kuma dhicin waxay tidhi maxaa dhacay maxaa dilay dabinkaygii halkee ayay ka xumaatay oo xisaabtu ka xidhmi weyday kadibna waxay isku dul taagtay dabinkeedii 2 jeer ayay ku dulbooday markii saddexaadna iyada ayuu la dumay oo waabay ku dhacday waxayna yaqiinsatay inay dusha ka adkaysay waxay tidhi waa maxay aniga miyaa dabin isku dhigay oo maaniga ayaa nafteedii halligay kadibna si tartiiba ayay kor uga soo foonatay balse khidadeedii halkaa kuma joojin saddexdii bakaylo oo ordaya ayaa ku soo baxay calaamad tilmaamaysa dhanka uu ka xiga kaaroogu waxayna ku heshiiyeen in calaamadda laga bilaabo halkii ay ka ordi lahaayeen hadda ay boodo ku tegi doonaan markii mid ka mid isku dayay inuu boodo ayaa waxa muday qodax kulul waa u qaylishay kadibna ooyay balse 2 saaxiibo kale ayaa caawiyay intay caawimaadiisa ku hawshanaayeenna dacwadii waxay khalkhal gelisay saddexdii bakayle waxay samaysay 2 calaamadood oo midba dhan kale u jeedo si ay jihada uga lumiso bakaylayaasha tartamaya 3 saaxiib ee tartanka ku jira ayaa iyagu boodaalaysanayay midkoodba mar soo gaadhay isla halkii ay calaamadu ka taagneed ka gadaal markay saaxiibkood ka saareen qodaxdii kululeyd ee mudday balse markii ay soo gaadheen goobta calaamadu taal waxay ku murmeen jihada ay aadi lahaayeen mid ayaa yidhi bidix kan kalena waxau yidhi midig kadibna muddo ayay murmayeen balse markii dambe waxay si wada jira ugu heshiiyeen inay qaadaan jidka bidix lagana yaabo inuu yahay
kan saxda ah ee tilmaamaya dariiqa iyo goobta ay ku soo arkeen karootadii weynayd. sidaas ayayna heshiiyeen. dacwada dilaaga ahi iyadu dhagar kale ayay maleegtay meel gadaal ka ah hara dhooba ah oo khatar badan oo tahay in kor looga boodo ayay dabinka la dhigtay. waxay malab ka soo xaday shinni, kadibna xabagtii malabka ayay marisay dhagax suu lugaha ugaga dhego midkii isku taaga. waa dabin iyo shirqool labaad. saddexdii saaxiib waxay soo gaadheen haro dhooba ka kooban, waxayna arkaan inay khatar badantahay, balse waxay ku heshiiyeen inay ka gudboodaan kadibna isku taagaan dhagaxaanta gadaasha dambe ee harada yaala si ay uga badbaadaan inay ku dhacaan. mid ka mida ayaa ka booday, kan labaadna waa uu ka booday oo waa u gees maray, balse midkii saddexaad ayaa ku dhacay dabinkii ay dacwada dilaaga ahi u dhigtay. waxa u qeyshaday saaxiibadii, iyana way ku soo laabteen oo way caawiyeen, isla dabinkiina way ka saareen. aad ayuuna u farxay, wuuna u mahadnaqay saaxiibadiis. halkii ayayna tartankooda ka sii wateen, balse dacwadii dilaaga ahayd ayaa mar kale tidhi tani suuragal maaha. iyada oo ku murmaysa sida ugu fashilmay dabinkeedii labaad ayaa waxa u timi shinnidii ay ka xaday malabka, kadibna way eryatay. iyada laftigeedina waxay ku dhacday dhoobadii khatarta badnayd, balse kuma dhiman ee way ka badbaaday. saddexda saaxiiboo mar kale ordaya waxay soo gaadheen haro kale oo biyo ku jiraan, waxayna markan yaqiinsadeen in dabbaal oo keliya ay tahay midda ay kaga badbaadi karaan. balse dacawadii intaa kuma hadhin. harada gadaasheeda waxay u dhigtay salaad, kadibna geed ka sarreeya ayay dabin la kortay. waxayna go'aansatay markii halkan yimaadaan inay shabagan dusha kaga tuurto ay saddexdoodaba qabsato. saddexdii saaxiibna waxay ku tartameen mar kale dabbaal, iyagoo ku tartamaya midkooda ugu horreeya ee barriga gaadha. muddo ayay dabbaalanayeen, kolba midkood ayaa dabbaasha ku horumarayay, kan kalena waa uu soo gaadhayay. muddona way sinnaayeen. markii dambena si isku mida ayay dhammaantood hal mar uga soo wada bixin oo barriga u wada taabteen. midkoodna ma guulaysan. tartankana weli waa uu sii socdaa. salladkii ayay bilaabeen inay cunaan. dacwadiina waxay doontay in shabageedii khatarta badnaa ay korka kaga soo tuurto, balse si lama filaana waxaa shabagii u dhex galay 3 shimbirood oo duulaya. mid ka mida kor ayayna dacwadii ula duushay, waxayna ku qaylisay dheg. meel dhexe ayay ku tuurtay, balse dhagarteedii marnaba intaa dacwadii kagama tegin. 3dii bakeyle markay dabinkii saddexaad ee khiyaamada lahaa ka badbaadeen, waxay halkoodii ka sii wateen tartanka iyo orodka ay doonayaan inay ku gaadhaan amba ugu kala horumaraan karootada. dacwadina marnaba ma joojin dhagartii iyo dabinkay maleegaysay. markan karoogii saxdaha ayay meesha ka tuurtay, kadibna mid maxmala ayay samaysay. iyada ayaana dhex gashay, waxayna tidhi markii ay doonaan inay cunaan cidda cunaysa aniga weeye. balse nin xoolo dhaqato ah oo marayay duurka ayaa arkay karoogan weyn, wuxuuna arkay inay tahay fursad iyo khudrad uu reerkiisa u geyn karo. kadibna dacawadii oo karooga ku dhex jirta ayuu qaatay, iyana waxay ku qaylinaysay dheg. weligeena ma dhigin, mana soo noqon. tan iyo maantana meeshii dacawa ku dambaysay cidina ma oga. 3dii saaxiib oo tartan iyo orod ku jira ayaa mar isku mida yimi godkii karoogu yaalay. waxayna yaqiinsadeen midkoodna inuusan mid kale ka soo horayn. tartankina guul isku mida ku dhammaaday. haddana ay tahay saddexdooduba inay wada cunaan si isku mida, balse karoogii ayay waayeen. mid ka mid ayaa yidhi ma fogee haro inoo wada. meelaan meesha waxba ka durugsanayna waxay ka heleen karoogii saxda ahaa oo geed gunti ay dacwadu ku qarisay. halkaas ayayna ku qaybsadeen. si kasta oo dacwada dilaaga iyo khaayimada ahayd ay isugu dayday inay dhagar iyo shirqool ugu maleegto 3dan saaxiib, haddana way ku fanshilantay. sirma qabe alla u sahanaa. shirqool kasta iyo dhagar kasta ay doonaysa inay ku dilmido uguma guulaysan. waxay Soomaalidu tidhaahdaa god ha qodin
haddaad qudana ha dheerayn laga yaabay inaad adigu ku dhacdee dhagartii iyo dhammaan wixii ay dabinu maleegaysay dacawo markii dambe iyada ayaa ku dhacday aakhirkiina iyada ayaa ku dhimatay sheekadatan waxaan ka baranaynaa sida daalimku marka u dambaysa isagu u guuldaraysto dhagar kasta oo qof wanaagsan u maleegana ay aakhirka u fashilanto intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno sheekadatan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wakhtigu ha idin wacnaado